assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. caawo waxaan qaadanaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo dufanka ama subagga malayga iyo hilibkiisa. malayga dufankiisa waxaa ku jiro maado la yidhaahdo omega 3, taasoo oo saliid faa'iido badan u leh caafimaadka, balse aan ka soo qaadanay dhowr qodob. waxaan ku qeexaynaa ilaa 8 qodob. kow, faa'iidada dufanka ama cunidda malayga subaggiisa waxa uu yareeyaa jilba xanuunka arthritis. 2, malayga wuxuu yareeyaa kansarka ku dhaca afka iyo maqaarka. 3, malayga wuxuu caawiyaa koritaanka maskaxda iyo ilmaha iyo uurku jirka, gaar ahaan dareemayaasha garashada iyo shaqada murqaha. 4, malayga wuxuu yareeyaa aragga yarida ama ku timaado dadka da'da ah. 5, malayga wuxuu sare u qaadaa xasuusta qofka. 6, malayga wuxuu yareeyaa khatarta wadne xanuunka iyo xirmada xididdada dhiigga. 7, malayga wuxuu yareeyaa khatarta sokorowga dhiigkarka. 8, malayga wuxuu fududeeyaa bacriminta ugxanta ilmuhu ay ku samaysmaan. Haddaba ku dadaal dufanka malayga isbuucii 2 mar ama 2 goor ugu yaraan, gaar ahaan midka fareshka ah aan ku ganacsana anaga ama waddankeena uu ka soo baxo. Halkan ayaan kusoo koobaynaa faa'iidooyinka subagga malayga iyo hilibkiisa. Wabilaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.